iyadoo ay jiraan guuc ku aadan in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk Soomaaliya ay shir ku yeesheen magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya kaasoo la sheegay in uu ku yahay dowladda Soomaaliya ayaa arrinkaasi waxaan ka wareysanay siyaasi caan oo xilal dhowr ka soo qabtay Soomaaliya kaasoo la yiraahdo Maxamed Cabdi Yuusuf wareysigaasna waxa ka qaaday wariyeen Cagmadhige waxaana ugu ran oo weydiiyay bal sidoo uu arko guuxaasi jira. بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waan kaga mahad celinayaa inaad arinta muhiimka ah ii sheegaysaan aad wax iga weydiisaan waxa weeye horta marka ugu horeysa xildhibaanadu waa xildhibaanada qaranka weeye wixii dalka dhibaatadiisa oo xumaata oo mataqaanay inay mataqaana ka hadlaan oo ma garanaysaa ay hor istaagaan waa waajib qaran laga doonayo weeye sayeeshe ma aha in waxaan munaasibka arinta ku waafaqsanayn wax ka gedisan inay xildhibaanadu ay isugu yimaadaan ma aha waxayna meel ka dhac ku noqonaysaa dhaartay u mareen dalka iyo dadka oo ah inay ilaalinayaan dalka diinta iyo dadka intaba bay meel dhac ku noqonaysaa waa weeye dawladdu waxa laga sheegi karaa waa lagu diidi karaa wax qaladay laakiin waqtiga iyo xilliga iyo situation dalka taagan maanta kuma haboona sababtu waxa weeye dawladda hadda joogtaa muddaday joogtaa waxa weeye muddo mataqaanaa isha aad u kooban oo aan mataqaanaa wax mucaarada ku ah la samayn karin weeye in la sugo oo la fiiriyo qaabka u shaqeynayaan oo waqti la siiyo u baahan yihiin oo ma garanaysaa markaas wixii toosinaan la toosiyo wixii laga hortagayo aan soconayna laga hor istaago in la yiraahdo markaas ku haboonaan laakiin wadda jaanis ma aha waxaad moodaa degdeg iyo waxaan cilmi ku dhisnay inay tahay haday arintaas ay meesha ay ka dhacdo xildhibaanadaas isu bahaysteen inay hadda carqalad ka abuuraan dalka gudihiisa qaladkaas aanu ma waafaqsan waana ila xun yahay sababtu waxa weeye dawladdu waa cusub tahay mana ay dhaxlin awood dawladeed dhinac walba ama siyaasadda noqoto ama dhaqaalaha noqoto ama bulshada noqoto oo continuation yeelan karto ay dhaxleen ma jirto dal burbursan oo kala tagay oo kala dhaqaaqay qoysku meel aaday ayay mataqaana dawladdu mataqaana hadda ay ka dhaxashay dawladda ka horeysay baarlamaanka ka horeeyay intaba kama ay dhaxlin Somali Unity oo organized oo dhaqaale leh ma ay dhaqan marka waxa weeye dad u baahan in waqti la siiyo oo la fiiriyo mataqaana say u shaqeynayaan iyo waxay sameynayaan la fiiriyo la tijaabo la siiyo u baahan waxa weeye teeda kale meesha ay isugu tageen oo ay mataqaana ay sheegeen ay taladan ka soo jeediyeen meel ku haboon ma waa dalal wax naga dhaxeeyaan oo si ognahay waxay soo jireen naga dhaxayso tuunkeeda yeelan karta dawladda dariska waxaad ogtiin waxba naga dhaxeeya qaarkood ma rabaan Soomaaliya inay dawlad noqoto iyo qarannimada dawladnimo doonayaan marka xildhibaanadu ku shiraan mataqaana Nairobi oo waxa ku sameeya wax meesha ku jira maaha dalkooda ku shirkan xamar yaa u diiday haday ku shiraan oo isugu yimaadaan barnaamijkoodii ama hoteelada isugu yimaadaan waxay markaa u arkayaan maslaxadda ummadda ka hadlaan marka ay lafteedu waxay keeni kartaa in mataqaana gacan shisheey ku jirta ayaa tuuma laga qabi karaa marka waxaan kala talinaynaa arinta ku soo kooba dalka gudihiisa wixii wanaaga ummadana adinka daleedin xilsaarood ka doona shacbiga adinkay idin wakiisheen oo makaan si kasta lagu yimaado waa garanay walba suuqyo garan kana laakiin waxaad u dhaarateen waxa weeye ummadda dalkii diinta inta in ilaalisa shacbigana waxa uu soo jeedinayaa shacbi laga baqo waa inuu noqdaa shacbi baarlamaanku waa inuu shacbiga ka baqa xukuumaddu waa in baarlamaanka ka baqdaa waa in madaxtooyada ka baqdaa shacbi midaysan oo qadiyadooda iyo midnimadooda iyo sharaftooda u taagan waa inay noqdaan oo ogolaanaynin in musuqmaasuq iyo ku dulnoolaasho iyo iska horkeen iyo qabiyad lagu maamulo waa inaysan noqon oo midnimadooda suuqa u soo istaagaan diidaan haddii kale waa lagu shaqaysanayaa muddo 30 sano lagu shaqaysanayay oo la isku diraayo la isku horkeenayay marka waxa uu tiiba lagu sii soconaya haddayna hadda ka midoobin hadda waxa arkaa calankii Soomaaliya qaadateen meel walba inay la taagantiin Soomaalnimo inay isugu imaanaysaan qabyaaladii inay sii guraysaa muuqanaysa laakiin haddaad kala tagtaan oo la idin kala kaxeeyo waa la idinku tumanaya dhibaatada adinka ku dhacaysa dad yarna idin ka shaqaysanay sheeyana dalka faragelin iyo matqan gumayso ku haynaya marka shacbiga base ka asal dhigi waa adinka ka digtoonaada waxyaalaha dalka lagu sameeyo